waxaa la tilmaamaa inay Afrika tahay hooyada ama asalka aadamaha meesha uu ka yimid. Taariikhyahanadu waxay xusaan inay tahay xudunta aadamaha meesha uu ka soo uskumay. Sakaha jiray intiisa badneed. Waxaa ku nool maanta in ka badan 3,000 oo qowmiyadood oo ku hadla in ka badan 2,100 luqadood. Waxaan soo qaadanaynaa 6 qowmiyadood ee qaaradda Afrika ugu dadka badan tiro ahaan. Intaan muuqaalka u gudagelin like saar fiidiyogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-kan oo dad badan gaarsiiyo. Magaciiguna waa Abbas Mustafa. Qowmiyadda Hausa ama Hausaha ayaa ah qowmiyadda ugu dadka badan guud ahaan qaaradda Afrika. Waxayna tiro ahaan dhan yihiin 80 milyan oo qof in kor u dhaafaysa. 65 milyan oo ka mid ah tiradaas ayaa degta dalka Nigeria oo ay ka yihiin 30% kana dhigan kuwa ugu dadka badan. Waxaa kale oo ay degan yihiin dalka Niger oo ay ka yihiin 55% una dhiganta 12 milyan. Waxaa kale oo ay degan yihiin wadamada Ivory Coast, Benin, Chad, Ghana, Cameroon iyo Sudan. 95 ilaa 98% waa muslimiin ku hadla afkooda iyo afka Carabiga. Kaalinta labaad waxaa ku jirta qowmiyadda Yoruba oo tiro ahaan dhan 47 milyan oo qof. Waxayna degan yihiin intooda badan oo dhan 45 milyan dalka Nigeria oo ay ka yihiin qowmiyadda labaad iyo tiro ahaan 21% bulshada waddanka. 80% wax ka badan waa Kristaan. Sidoo kale waxay degan yihiin Ivory Coast, Benin, Togo iyo Ghana. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta qowmiyadda Igbo oo tiro ahaan dhan 45 milyan. Waxayna iyaga degan yihiin dalka Nigeria oo ay ka yihiin 18% oo dhan 40 milyan wax ka badan. Waxaa kale oo ay degan yihiin wadamada deriska la ah dalkaas sida Ghana iyo Cameroon. Qowmiyadda kaalinta afraad ku jirta waa dad la yiraahdo Fulaniya oo dega wadamada Mauritania, Ghana, Senegal, Guinea, The Gambia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Cameroon, Ivory Coast, Niger, Chad, Togo, South Sudan, The Central African Republic, Libya iyo dalal kale. Waa qowmiyad lagu qiyaaso 35 ilaa 45 milyan oo ah kuwa ugu saameynta badan. Waxayna degan yihiin inta u dhaxayso bartamaha Afrika ilaa xeebta galbeed ee Atlantika. Fulanigu dalalkaas oo idil markii laga reebo Guinea waxa uu yahay qowmiyadda labaad ama kuwa majority-ga ah. Haddana waxa uu maamulayaa wadamada Nigeria, Senegal, Mali, The Gambia iyo Sierra Leone. Sidoo kale wadamada kale oo idil oo ay ku nool yihiin saameyn ballaaran ayay ku dhex leeyihiin. Qowmiyadda shanaad ee ugu dadka badan qaaradda waa qowmiyadda Oromo oo ah tan ugu dadka badan bariga, bartamaha iyo koonfur Afrika. Waxay dhan tahay 35 ilaa 40 milyan. Waxayna deegaan ku leeyihiin Ethiopia oo ay ka yihiin 35% wax ka badan. Waxaa kale oo ay degan yihiin wadamada deriska sida Kenya. Qowmiyadda lixaad ee ugu dambeysa waa qowmiyadda Soomaaliya. Waa anagoo tiro ahaan lagu qiyaaso 25 ilaa 30 milyan. Waxay degaan Soomaaliya iyo Djibouti oo ay ka yihiin ama majority ka yihiin. Sidoo kale waxay degaan Ethiopia oo ay ka tahay qowmiyadda saddexaad iyo Kenya oo ay ka tahay qowmiyadda lixaad. Sidoo kale waxay degan yihiin Yemen si la mid ah wadamo badan oo galbeedka ah iyo Asia ayay aad u joogaan. Tiro ahaan Soomaalidu ku nool waxaa lagu qiyaasaa 16 ilaa 17 milyan halka Ethiopia ilaa 8 milyan ay ku nool yihiin. Kenya 3 milyan halka Djibouti 9 milyan wax ka badan ay ku nooshahay. Halka Yemen ay ku nool yihiin ilaa 500,000 oo Soomaali ah iyo wadamada kale oo ay ku nool yihiin 1 ilaa 2 milyan oo Soomaali ah. Sidoo kale Soomaalidu waa qowmiyadda kaliya ee leh dhulka ugu ballaaran ee haysta ee hal qowmiyad degan tahay. Waxay ka dhul weyn tahay 3 qowmiyadood ee ugu horeeya oo la isku daro dhulkooda. Waxaa jira qowmiyo fasaqmay oo isku qasmay sida Barbaariyiinta iyo Carabta. Sida awgeed tirada laguma soo daro oo waa ay isku milmeen waxaana la isku dhaxaa Carab Barbar. Sidoo kale Amxaarada ayaa 7 soo gasha oo dhan 19 ilaa 20 milyan.